السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام meel walbo aad joogtaan walaalayaal waan idin salaamayaa. waa walaalkiin Dr. Cabdiqani. caawan waxaan jeclaystay walaalayaal inaan idinla wadaago xadiiskan oo ah xadiis saxiixa oo ka sugnaaday rasuulka, waxaana warinayaa laba saxaabi oo jaliil ah. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay meel walbo aad joogtaan ilaahay ka baqa, xumaantu markii inta ka dhacdana wanaaga ku bedela, iyada ayaa maydhaysa, dadkana kula dhaqma akhlaaq wanaagsan. marka walaal rasuulka sallallahu alayhi wasallam arrimahaas uu ina farayaa in laga faa'iideystana waa muhiim. meel walbo la joogo iyo saacad walba ku sugantay wax walba ku sugantay ilaahay ka baq, xumaantana wanaag ku bedel, dadkana akhlaaq wanaagsan kula dhaqan. walaalaha kalena insha Allah ha la gaarsiiyo. Assalaamu calaykum.